السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركن wuxuu ku saabsan yahay cashir kooban oo saddex qaybood ah adigu dhowr qaybood noqon doono ku saabsan sida Excel MS Excel lagu sameeyo data analysis. Marka is Excel for data analysis. Way jiraan aalado kale oo la isticmaalo data analysis lagu sameeyo. SPSS ka jira, Stata jira, ARA jira, waxyaabo fara badan, aalado fara badan oo kala duwan jira, laakiin midka ugu fudud data analysis lagu sameeyo inta badan waliba data analysis sida aan u sii badnayn oo kale waa Excel. Excelka marka awood buu leeyahay uu kaaga caawin karo siba dadka muxuu ahaa xogta aruuriya oo hadana falanqaynta ku sameeyo. Marka horaan u gelayaa cashirka koowaad ayaan gelayaa waxaan tusaale u soo qaadan doonaa muxuu ahaa waxaan tusaale u soo qaadanayaa tababar la sameeyay oo loo sameeyay 25 ka qaybgalayaal oo tababarka kadib la sameeyay muxuu ahaa satisfaction survey la sameeyay. Satisfaction survey dabcan wad u jeedaayo inaad garanayso waa suurtagal marka tababarada la sameeyo ama mashaariicda la fuliyo ama wax un la sameeyo yaa la qiimeeyaa muxuu ahaa in la gaaray hadafkii laga lahaa wixii ama dadkii ka qaybgalayaasha ay qanceen ay ku qanceen qaybaha kala duwan ee tababarka yaa lagu ogaadaa. Marka tababarka marka uu dhaco kadib ninka tababaraha report looga baahan yahay report qoraya reportkaas markuu qoro reportkii qalalan kaliya ma diray sida wanaagsan waxa weeye in form noocan oo kale ah intuu muxuu ahaa oo la wadaago ardada ama ka qaybgalayaasha muxuu ahaa kadib muxuu ahaa jawaabahoodii ay ka bixiyeen iyo qaabkii ay oo la falgaleen uu muxuu ahaa intuu ururiyo xogtaas falanqayn ku sameeyo kadib iyadoo falanqaysan uu muxuu ahaa analysis kaas uu gadaal kaga dejinayaa reportka si qofka reportka akhrisanayo uu fahmo muxuu ahaa waxyaabihii hadafkii laga lahaa tababarkan in la gaaray in kale inay dadkii ku qancin tababarkii in kale. Marka formkan oo kale aad u jeedo training evaluation formka inta badan la sameeyaa dadka qaar maxay ahayd qaybta hore iyo qaybta dambe way sameeyaan tababarka laakiin hadda waxaan soo qaadanaynaa example kan oo ah kaliya muxuu ahaa satisfaction survey. Satisfaction survey-gana dabcan shaygu markuu dhaco kadib ayaa la sameeyaa inay dadka ku qanaciyaan kale. Marka scale-kan aan isticmaali doonaa strongly agree, neutral, disagree and strongly disagree. Basically intaasaan isticmaali doonaa waa 10 su'aal 10ka su'aal ayaa loo dhiibayaa qaybgalayaasha jawaabahoodii laga qaadaya jawaabahaas falanqayn lagu sameeyaa data analysis. Marka formkana la wadaagaya dadka kadib mataqaana xogtii halkan ay ku soo gudbinayaan. Marka aan dhahno tababarkii aan sameeynay formkana muxuu ahaa formkana la wadaagnay ka qaybgalayaasha 25 qof ahaa xogtii baan ka aruurinay xogtii markaan ka aruurinay formkii baan soo qaadanay kadib Excel baan tageynaa. Excel markaan tagno Excel aan tagnay waa kana marka akhbaaraadkii dadkii sidii ay oo la falgaleen su'aalahoodii su'aashi koowaad ilaa su'aashi 10aad watii aan dhahanay formku wuxuu ka soo ka koobnaa 10 su'aal oo ka koobnaa 10kii su'aal ee qaabkay oo la falgaleen iyo jawaabihii ay ka bixiyeen oo kala duwan oo u dhaxayso strongly disagree iyo strongly muxuu ahaa agree. Intaas shanta scale ku salaysan yaa halkan marka xogta halkan aan marka laga buuxiyay halkan aan ka buuxinay su'aasha koowaad ilaa su'aasha 5aad. halkan waxa weeyaan lambar matalayo muxuu ahaa ka qaybgalayaasha qofka koowaad qofka labaad qofka saddexaad qofka afraad. Marka anigu lambar man iska isticmaalay magacan oo isaga qoran karta laakiin data analysis marka la sameeyo waxa haboon in mataqaana magaca muxuu ahaa la isticmaalo ID-gan waxa weeyaan macnaha wax aqoonsi qaas ah loogu talagalay shakhsiga. Marka sidaa darteed halkan aan xogta ku haysanaa xogtan marka waxay diyaar u tahay
in analysis lagu sameeyo dabcan waan nadiifinay waxaan ogaanay god muxuu ahaa su'aal aan laga jawaabin inay jirin qasab waan dabagalan ku sameynaa dhamaan arday ka qaybgalayaasha inay ka wada jawaabeen su'aalihii marka haddii ay wax ay ka su'aal ay ka jawaabeen ay jiraan dabcan dib ma laha iyadana waan arki doonaa waan baari doonaa marka halka waxa igu qoran data ready for analysis macnaha xogtan waxay diyaar u tahay in mutaqaana hadda lagu sameeyo falanqeyn kadibna waxay soo baxo aan aragno marka haddaba marka waxaan sameynayaa intaanan qayb kale u gelin waxaan sameynayaa waxoogaa yar oo datakan muxuu formkan aan hagaajinayo waxaan sameynayaa inaan freeze gareeyaan isku dayaa qaybta sare iyo qaybtan inay iska istaagaan mar walba soo scrollga hadda eeg markaan hoos u baxo way iga libdheesaayo way iga qarsoomaysaa qaybta sare haddaan dhinaca kale u wado sidoo kale way iga qarsoomaysaa qaybtaas lambarada way iga qarsoomayaan marka ma rabo inay sidaas dhacdo waa taqaanaan waan freeze gareynaa marka halkan aan qalinka saaranayaa qalin marka halka saaro macnaheedu waxa way qaybta ka sareyso qalinka rowgaas ka sareeya halka tuujiye iyo kan dhinacan ka jira wixii xagga ka sii jiro iyo waxa tan sare ka jira muxuu ahaa ma dhaqaaqayaan hadhow marka sameynaya view aan tagaya then freeze aan lahayaa kadib waxaan leeyahay freeze panes so hadda eeg saan u wareeyo waxa halkaad iska joogaysaa soconaysaa tanna sidoo kale ma soconayso marka lambarka ma soconayo lambarka ma soconayo markaan sida aan ugu xayo lambaradaas ma soconayaan marka caadi aan arkaa documentiga ma qarsoomayo okay intaas markaan sameeyo haddana waxaan sameynayaa datarka waxaan ka dhigayaa table aan gelinayaa table marka waan highlight garaysanayaa hal mar aan had saarayaa markaan had saaro ilaa halkaa tableka aan rabay waxaan sameynayaa table aan aaday insert table aan leeyahay insert table click then maya madamo waana halkaa tagaa ya halkana kasoo bilaabay tablekayga waa kana ilaa halkaasaan saarayaa waxaan leeyahay insert table then tableka waa diyaar so okay intaa markaan sameeyo kadib aan markaa wixii data analysis aan ku sameynaa marka data analysiska markii aan sameyno formkan kuma dhejini doono waxaan ku dhejini doonaa wax sidan u eg form sidan u eg tablekan oo kale oo tusinayo muxuu ahaa su'aal kasta iyo sidii looga falceliyay ama boqolkiiba meeqa qof ayaa tiri strongly agree strongly disagree iyo waxyaabahan table noocan oo kale ayaan ku dhejinaynaa kadib graph visual representation ah oo tan oo noocan laga dhigay waa qaabkan muxuu ahaa shaxdan oo laga dhigay waxa weeyaan muxuu ahaa jantus laga dhigay oo muxuu ahaa ka yar muuqaal wanaagsan ama ka fudud akhrintiisa labadan oo kale ta reportka gadaal looga dhijinaya kuwan marka waxay ka imaanayaan analysiskii aan sameynay halkan ka yimaaday marka qaabkii looga sameyn lahaa labadan looga soo saari lahaa muxuu ahaa xogtan halkan ku qoran looga soo saari lahaa wax qurux badan oo noocana sidan uu muxuu ahaa u wanaagsan yaan barani doonaa marka halka qaybtan halkan aan kusoo gabagabeynaa qaybta koowaad. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. La soco qaybta xigta.